Waa maxay sirta guushu? Waxaa jiray wiil kaasi oo doonayay inuu guuleysto mar uun, laakiinse ma uusan garanaynin waddadii uu u mari lahaa guusha. Maalin maalmaha ka mid ah ayuu la kulmay oday waayo arag ah. Wuxuu la sheekaystay cabbaar, wax yar kadibna waxa uu weydiiyey su'aashii maskaxdiisa ka dhex guuxaysay oo ahayd, waa maxay sirta guusha? Odaygii ayaa ku yidhi, wiilkaygiiow, waan kaaga jawaabayaa su'aashaada, laakiinse berri isku keen webiga. Sidaas ayaana lagu ballamay. Maalintii xigtay, maalintii ballanta markii la gaaray, labadoodiiba waxay soo xaadireen webigii. Ninkii waayo aragga ahaa wuxuu ku yidhi wiilkii yaray oo hamiga lahaa, wiilkaygiiow, inakeen aan wada galna biyaha si aan ugu dabaalanno webiga. Biyihii ayayna wada galeen, webigii ayayna ku dabaashteen. Markay dhex bartankii gaareen webigii, wiilkii yaraa ayaa la qabtay madaxa, waxaana hoos loo geliyey biyihii. Wiilkii yaray waxaa ku adkaatay neeftii ilaa ay indhihiisii gaduuteen. Wiilkii yaray naqaska ayaa ku ceshoomay. Odaygii ayaa kor u soo qaaday wiilkii markii la soo qaaday ayuu kor fiiriyey, asigoo raadinayo hawo wal uu ku neefsado. Hawadaasi uu u baahnaa cabbaar. Hawadii markuu cabbaar qaatay, odaygii ayaa ku yidhi, wiilkaygiiow, markii aan ku geliyey gudaha webigu uu naqaska kugu xirnaay, waxa aad tamaninaysay, aad jeclayd, aad ku dadaalaysay, maxay ahayd? Wiilkii yaraa ayaa yidhi, inaan hal mar u soo baxa bannaanka aana qaato hawo. Odaygii ayaa ku yidhi, wiilkaygiiow, su'aashaadii shalay jawaabteedii waa taasaa. Maxaa yeelay qof allaalan iyo qofkii ku dadaalo hamigiisa si uu u gaaro, waa uu gaarayaa hamigiisu. Dadka hamiga iska leh waa dad aad iyo aad ugu dadaala hamigooda si ay ugu xaqiijiyaan maalin maalmaha ka mid ah. Dadka hamiyada waaweyn iska leh waxay gaari doonaan hamigoodu maalin maalmaha ka mid ah. Sida ay u soo baxda qorraxdu, sidaas oo kaleeto ayuu u soo bixi doonaa hamigoodu.